beelaha deegaanada Xood Xayira iyo Qoryaale ayaa qabtay xaflad ballaadhan oo ay ku shaacinayaan murashaxa u matali doona golaha wakiilada doorashada dhawaan la filayo inay ka qabsoonto Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay madashani barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayde maamulka xisbiga kulmiye ee gobolkani Togdheer waxgarad cuqaal waayeel haween iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horeynba waxa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay qaar kamid ah waxgaradkii haweenkii iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay xafladaasi anagu saaka waxaanu nimi inaanu shaacino musharax Maxamuud Axmed Coday aqoonyahana oo aan ma oo shiraban oo aanu isniri iyo golaha baarlamaanka iyo dadweynaha uu ka soo jeedo iyo dalka iyo diintiisa intaba waxbu ku tarayaabaan anagu isleenahay markaanu geed iyo geed gaaba fuulay ee aanu dhinac walba ka eegnay inuu noqdo musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Togdheer ee beesha Raaga Maxamed Maxamuud Axmed Coday markaanu eegnay ee shaandhaynay ee daraasad ku sameynay waxaanu ku wareejinaynaa maanta xisbigii aanu ka sharaxnayna uu ka sharaxnaa oo ah xisbiga kulmiye waxaanu guniye qarba ku dhiijinay inuu reerka musharax u yahay Maxamuud Axmed Coday oo nin mujaahid oo la yaqaan uu yahay nin aqoonyahana yahay cidna aan lagu doorsanayn waxayna arki doonaa inagoo maanta halka sacab bilowgii bayna ka tumaynaa farxad gadaalkeedna ka tumi doona halkan waxaan u nimay inaan taageerno Maxamuud Axmed Coday oo aynu aqoontiisa iyo kartidiisa iyo hadala badinkada leeyahay miisaankiisa aynu ku dooranay waxaan naga gudoomaysaan waxa weeye ee aan la shaqeynaysan anagu aan la shaqeynaa Maxamuud Axmed Coday weey walidigiisa iyo wiilkiisa oo soo horay wadan iyo qaran waqtigiisa soo wariyay waxa weeye nin wax ku wala hol la yaqaan weeye ninkaas sidaa loo sheegay weeye madaxda xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer iyo waliba barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayde oo madashaasi ka hadlay ayaa iyaguna soo dhaweeyay murashaxaasi mujaahidka aqoonyahanka ee ka sharaxan xisbiga kulmiye mar koowaad iyo mar labaadba soo dhawooba murashaxan la soo xulay maanta de madashan loo shaaciyay waa nin dadku wada garanayaan oo aqoonyahana waa nin shuruudihii ay baarlamaanku ku xidheen murashaxiinta iyo kuwii xisbiyadu ku xidheen iyo kuwii dadka deegaanku ku soo dooranayeenba buuxiyay runtii beeshan reer Raage ee murashaxa maanta shaacinaysa soo xushay waxaan leeyahay runtii waxa soo xusheen xildhibaan aan qabad ahayn oo leedinku celinayno dhammaan shuruudihii aan aaminsanahay inuu buuxiyay waa maalin weyn waa maalin qiimo leh waa maalin aynu qaadanay mujaahid u soo halgamay dalkan mujaahid qiimo weyn ku leh dalkan mujaahid u soo naafoobay dalkan u soo xusheen beeshan u soo xushay inuu uga mid noqdo golaha wakiilada ee doorashada cusub soo gelaya barasaabka ka ah ee mas'uulka ka ah iyo hadday tahay xisbigaba sidaa u soo qaateen baanu idinla qaadanay ugu dambeyntii murashax Maxamuud Axmed Coday oo soo gunaanaday hadalka ayaa u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay murashaxnimadiisa waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka tartamayaa gobolka Togdheer waxaan ka tartamayaa xisbiga kulmiye waxaan fariin u dirayaa ardayda iminka qaarkood ay professorada yihiin oo aan hubo qaarna ay heerarka kala duwan ee jaamacadda marayaan ee aan ka soo saaray jaamacadda Burco ayaan fariin u dirayaa fariintaasi waxa weeye waqtigiinii baa la joogaa lama joogo waqtigii la odhan lahaa dhaan baa fulay iyo dhaan baa ooman lama joogo waxaa la joogaa waqtigii aqoonyahanka anigu waan idiin sahan tegayaa waxaan u baahanahay codkiinna iyo taageeradiinna waxaan doonayaa oo aan fariin kale u dirayaa dadweynaha reer Soomaaliland dhammaantood
waxaa tartami doonaa oo idin odhan doona codna siiya dadaan ogayn waxa uu idinku joogo qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.